بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسكو سو دواتان مقال كله iyo cashar kale waa Ibrahim Ismaan. Waxaan rabaa marka fiidiyogan ama casharkan in aynu ku barano harddiskiyada noocyadooda kala duwan aynu kala eegno HDD-da iyo SSD-da waxay ku kala duwan yihiin shaqada ay qabtaan maxay tahay imisa nooc bay leeyihiin yaa dheereeya se nooceebaa ah nooca gaabiya halkan hadda aan ka bilaabo noocan hadda aad aragtaan nooca birta ah oo sidan u eeg nooc la yiraahdo HDD waxa loo soo gaabiyaa magaciisa oo dhameystiran hard disk drive marka isagu wuxuu u shaqeeyaa qaabka uu shaqeeyaa waxay tahay maadaama bahashan ay cajirado wareegsan baa ku jira gudaheeda ku jira marka la furo cajiradaha marka way kala sarsareeyaan kadib sareynta ay kala sarreeyaan marka computerkaagu daaran yahay waxay u wareegayaan cajiraduhu si xawli ah ay u wareegayaan marka ay wareegayaan qalin waxa jira sawirkan xagga soo saarayo bir la yiraahdo madax yar oo akhrinayo read and write xogta ku qora kana akhriya xogta marka lagu qoriyo iyo marka laga akhrinayaba qalin baa xoqaya marka wareegaas ay wareegayso iyo xogtaankaas xogta laga akhriya lagana qaadaa ama lagu shubaa waxa kale oo jira marka nooc kale oo la yiraahdo SSD-duna waa nooca way ka fududahay waa caaga aad bay uga yartahay marka la isbarbar dhigo waa aragtaan iyadoo ilkahaas ayaa loo gelinayaa godka kana ilkihiisu waa nooca hadda labada noocba waa SATA afka SATA iyo waxay ku duwan yihiin waxaan ku arki doonaa ilkaha hadda noocaas HDD-ga waa isla fahanay HDD waxa loo soo gaabiyaa hard disk drive marka wareegayo iyo xogtaanka la xoqaya xogta laga akhriyaa isagu ilkahaas uu leeyahay labada ilkood halkan hadda aragtaan iligan iyo iligaas ee computerka marka uu ku jiro laba meelood loogu beegaa hadda kan oo kale si uu san iga dhaqaaqin ayaan koolada ugu dhajiyay haddii aan marka ka furo kooladan aragtaan inuu san iga dhaqaaqin maraan ugu dhajistay kooladaas oo kale aan ka fiiqayaa kan marka computerkaas inaan ka soo saaran rabaa koolada markaan ka fiiqo qaaran koolada u baahnay baa jira marka waa kan waa isku mid uun smartid ka labada ilkood hard disk-ga noocan HDD-ga halkan iyo halkan baa gudaha waxa ugu diyaarsan laba goobood laga geliyo hadda sidaad halkan uga jeedaan halkaas iyo waxay kala gelayaan halkan marka hadda iliga dheer bartaas u gelaya ka gaabanna waa kan ka dheer iyo ka gaaban bay kala leeyihiin mid walba kiisaad ku beegaysaa waad gelin doontaa qaar waxa jira aan fit ku noqon aan hadhow ku fariisan sida kayga kale call waad gelaysaa calladiisi baad ku ceshanaysaa insha Allah taala kaygan isagu waa ka wax la yiraahdo waa HDD weeyaan marba haduu birta yahay godka gashaa marka la yiraahdo SATA waa afkan godka loo gelinayo okay ka HDD-ga asaasan uga booday nooca kale SSD-gu waa kan isagu inta ugu badan SSD-gu uu ka dheereeyaa ka kale wuxuu uga dheereeyaa horta SSD waxa loo soo gaabiyaa labadan hadda waa SSD oo noocooduna waa M.2 weeyaan hadda kan hadda aragtaan SATA kan SATA ma aha isagu waxa la yiraahdaa noocan waa NVMe la yiraahdaa kan NVMe kana waa SSD SATA ah kana waa HDD labadan iyagu caag bay ka samaysan yihiin koona bira marka koon waa traditional hard disk waa kuwii hore iyaga waxa ka dheereeya HDD-ga maadaama uu wareeg samaynayo SSD-gana ka dheeraysa SSD-gan SATA-da nooca ahna M.2-gan waxa ka dheereeya isagana NVMe-dan kuwan horta M.2 way fara badan yihiin M.2 waxa jirta 2230 2242 2260 2280 22110 marka way fara badan yihiin noocyadooda kuna aad bay fara badan yihiin marka M.2 laga hadlayo marka waxa weeyaan midba mid buu ka sii dheereeyaa HDD-ga birta ka samaysan waxa ka dheeraysa M.2-ga SSD-da oo nooca SATA-da ah tan waxa ka sii dheeraysa xagga transferka data-da marka laga hadlayo xogta tana aad uga sii dheeraysa NVMe noocana ka sii dheeray marka midba mid buu ka dheereeyaa marka qoladan iyagu wax wareega sameeyeen ayay shaqeynayaan aad bay uga dheereeyaan laakiin kan qaabka xogta akhrinaya waa bir koronto far badan oo ka isticmaalaya aad u wareegaya marka sida markaan hore u soo sheegay labadan computeradaada waxa dhici karta in kan kaliya uu galo qaarna waxa dhici karta in labadoodu wada galaan oo HDD iyo SSD uu gali karo qaarna ay galaan HDD-gan iyo SSD kaliya kuwa gali kara marka computerka marka ibsinaysid kaliya ha ku xulan environment-gana waa in qorshaha ku darsatid ha ku xulan koorka uu yahay
speedka xawaaraha CPU-giisa generationka iyo waxa marka ay gato graphica waxa laga yaabaa in qorshahaaga ay muhiim ay tahay inaad garanayso gudihiisa waxa ku jira hadda computerkan aan hayo oo kale waa 840 SSD-da gasha waa noocan M.2 ah oo half size ah half size-ka waxaan ka wadaa sawirka ayaa halkan idin soo dhigaya sawirkaad ka arki doontaan half size waxa weeyaan noocan dhaadheer ma gasho iyagoo half ah jira marka tan hadda adaan dhaco SSD-da godkaas SSD-da computerkan hadda godkaas ay gashaa ilkahaas bartaas leeyihiin ilkuhu aan halkan kale iftiinkan soo yaraado ilkuhu marka barta la geliyo sida marka loo geliyo hartan bartaas oo kan sida loo geliyo ina fariisato laakiin tabadii meesha boolka loo gelin lahaa tabadii banaanka taagan boolkaasna waxa la rabaa inuu bartaas laga xiro oo ku beegmo marka baalkan ma gaaray halka half size buu baahan yahay mid half u baahan yahay kanna ma geliyo M.2 gan labaadina ma geliso marka labadan M.2 aynu haysano waxay ku kala duwan yihiin ilkahooda hadda eegtaan hadda taas halka hal ilig bay halka ku leedahay tan wada aragtaan geeska laba ilig bay ku leedahay dhexdana ilig dheer bay ku leedahay marka labadan way kala duwan yihiin tan waayo sababta waxay tahay waa SATA weeyaan SATA-dana waxa ka dheeraysa NVMe-dana ka dheeraysa ayaga noocyadooda horaan u soo sheegay insha Allah ta'ala kaas computerkaaga marka waa muhiim inaad garanaysid waxa gala haddii marka uu HDD kaliya galo SSD-da dheeranaysay noocan ah ma gashan kartid waa inaad SSD-da kale caadiga standardka aad gashatid oo godkan SATA-da ku galaysa SSD-da iyadana nooc madow baa jirta oo computerka loogu talagalay in xogta gudaha loo geliyo marka hard disk-yadu waa laba marka hard disk-yadu waxay u kala baxaan internal iyo external internalku waxa weeye waa kan computerka gudihiisa ku jira oo operating systemka waa ku duuban computerka dhexdiisa la geliyay waa xogtaadii fiidiyoyadii sawirradii documentska bay haysaa midna waa external oo kan oo kale oo USB-ga la gashanayo xogta loogu talagalay qofka muhiimka ah inuu ku qaato ayuu sida USB-ga flash oo kale ku qaadanaya iska wadanaya meel buu dhiganaya marka computerka xogta u baahnaa oo dhan ku koobiyeysan karaa marka ka waa external waa isla kan waa external marna waa internal oo computerka gudihiisa ayuu ku jiraa oo xogtiiba kugu jirta Windows-ka systemkii kugu duubna operating systemkii isagoo ku jira marka computerka xumaaday hard disk-giisa external waa ka dhigan kartaa oo xogtaad ku kaydsan kartaa internal gudaha markuu ku jiro weeye marka computerka markuu gudaha hard disk ku jiro shaqada waa operating systemkii waa ku duuban marka laakiin uu banaanka yaalo waa mar USB iyo case-ga coverka galka uu ku jiro marka kan oo kale maraad xog muhiim ah uga baahan tahay oo computerka waa soo qabanaysaa USB-gaad gashanaysaa dhag xogtaadaad ku shubanaysaa waana ku kaydsanaysaa marka ma laga dhigi karaa weeyaan su'aashu mid gudaha computer aan ka saaray kaba soo qaad computer baa shaashadii ka jabta oo burburay kana ka bad qaba kan 500 oo GB maadaama la tuuri karin ma laga faa'iideysan karaa ha waxa jira gal yar oo la soo iibsado oo kana oo kala intaas oo kala marka isaga hard disk gudaha bartaas la gelinayaa USB-gana bartaas aad ka gelinaysaa xogtaad ku qaadanaysaa hadda kan aan gudaha computer ka saaro oo kale waan gelin karaa afka uun baan ugu beegaya marka isaga labada ilig kan gaaban baa gelinaysaa dhag saasaad u gelinaysaa filadan halkaas aad ka sii gelinaysaa waa ku diyaarsan yahay markuu daaran yahayna leerka ayar baa ifaya markuu daaran yahayna marka ka waxa laga siinaya lacagta $7 $6 ku dhow waa soo iibsan kartaa suuqna waa ka helaysaa marka computerka mid gudihiisa aad kala soo baxday ama computer xumaaday waxaad u bedeli kartaa external marka external waa marka banaanka uu kaga jiro oo xogta lagu kaydsanayo marka kalena waa maruu internal yahay gudaha computer ku jiro oo xogtii ay ku kaydsan tahay marka labadaas ba waa u kala baxaan halka waxaan ku sharxaynay farqiga u dhaxeeya HDD iyo SSD iyo noocyada kala duwan marka waxa jira M.2-ga SSD aan ahayn baa jirta oo tan oo kala ah kaliya waxa kaga duwan tahay waa caagtaasi kaliya tan waxa kaga duwan tahay waa caag tanna waa birta wareegaysa marka SSD mar walba waxay ka dheeraysaa HDD laga yaabaa generationada dambe in computerada hadday saa ku sii socdaan HDD-ga oo dhan ay kan replacement ku sameeyo kan meesha ma ka baxo marka jiilasha cusub ee computerada iyo generationada cusub SSD-da hogaamin doona SSD-da markay M.2 tahay markay nooca la leeg tahay laakiin markay sidan tahay waa SSD caadi ah M.2 gan laftirkooda waxa jira SATA iyo M.2 NVMe labadoodana waxa dheereeya kan oo SATA waa laga dheereeya SATA wuxuu ka dheereeyaa HDD NVMe wuxuu ka dheereeyaa M.2-ga oo ah SATA nooceeda la yiraahdo SATA-da iyo M.2-ga laftirkooda M.2-yadu waxay yeelan karaan half size tan oo kale half-keeda yeelan karaan marka computerkaaga hadii aad doonaysid inaad ogaato gudihiisa waxa ku jira waa inaad intaadan iibsan ka hor aad dhahdid imise hard disk baa gala sida kayga aan tusay kala aniga kayga HDD-guna oo gala aniga bartan ka soo saaray ilaa hadda waa kan ku cishan doonaa ka walaal halkan SSD-da gala marka anoo kale hadii kan iga xumaado
in case kan xumaado SSD daasi aan iyadana gashan karaa laakiin haddii kan kaliya uu kugu jiro waxay noqonaysaa kan kaliya inaad haddana raadisid baa khasaba marka halkaas aan muuqaalka ku joojinayaa haddii aad YouTube channelka cusub tahay subscribe leh Facebook page keenana follow soo dheh muuqaalkaaga intaan ku kori doono Ibrahim Ismail idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh